السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا دمانتين بمالك soo dunida feedka joogtaan isku soo noqod wanaagsan waxaan video kaga jawaabayaa su'aal maalin dhaweyto ay gabar soo weydiisay videogu waxa ma xasuusta laakiin mid videoyada kamid ah ay su'aasha tani ku jirtay waxay tiri ayuu waxaad ka soo hadashaa waxyaabaha xoojin kara labada qof ee isqabta jacaylkooda waxaan adoo video kugu la wadaagayaa saddex waxyaabood oo sabab u noqon kara in labada qof jacaylkoodu uu xoogsado in jacaylkoodu uu ka kordho intii hore uu joogay dabcan way isjecelyihiin way isla joogaan laakiin joogtayn wax haddii la joogteeyo maalin kasta jacaylka si kasta oo ay caqabada u yimaadaan ama la isu khilaafo soo celin kara soo xoojin kara noolayn kara maalin kasta midda koobaad waxay tahay habeenkii markaad seexataan oo maalinimadiinu ay soo dhammaato soo gabagabowdo oo joodariga isugu timaadaan in ay jiraan wax uun laba shayba ha noqotee oo aad isaga mahadnaqdaan waxaa dhici karta tusaale ahaan in ninku uu yiraahdo xaaskiisa ku yiraahdo waad ku mahadsantahay cashadii macaaneyd ee maaragtay caawaad noo karisay ama qadadii ama quraacdii ama ilmaha aad haysay maanta ama gurigaad ka shaqaysay inuu uga maaragtay mahadnaqo waxaa kaloo ka mid ah in sidoo kale gabadhu waxay uga mahadnaqi kartaa hadal wanaagsan oo maanta ku yiri fariin qurux badan oo uu soo qoray wuxuu u soo gaday maalin hore xataa wuxuu maaha qasab maalinta inay dhaceen laakiin wax xataa marar hore dhacay oo hadal qaadkiisii la iskaba iloobay oo kalaad qofka ku oran kartaa waad ku mahadsantahay hadduu ku soo wacay baad dhihi kartaa waad mahadsantahay shaqada maanta uu aaday reerka iyo waajibka uu gudanayaad uga mahadnaqi kartaa mahadnaqu inta badan wuxuu keenaa in labada qof horta ay qalbiyadooda isu soo dhawaadaan wuxuu kaloo keenaa qofku markuu wax kuu sameeyo in waxa uu kuu samaynayo uu mar walba ku dhiirado inuu intaa ka badan kuu sameeyo inuu kuu hagar baxo ayay keentaa mahadnaqu meel fog oo weyn ayuu gaaraa oo qalbiga qofka uu ka degaa saa darteed qofka markuu waa mahadsantahay ku yiraahdo ama waxaa dhici karta marmarka qaarkood inaad qof wax u samaysid aadna tiraahdo qofkaasu waa mahadsantahay xataa ima dhihin wuxuu abaal daranaa qofkasoo waa mahadsantahay laguma yiraahdo soo looma mahadnaqo qofkaasu dadka waa mahadnaqo marka mahadnaqa bini aadamka oo dhan way jecel yihiin waxa ay sameeyeen in looga mahad celiyo xataa waajibku saarnaa hadday tahay inaad ku tiraadid waad mahadsantahay oo habeennimadiinu ay markaa seexanaysaan ku gabagaboodo positive idinkoo qofba qofka kale waayo xaqiiqada dhabtaa jirtaa waxay tahay adduunyadan lama oga waxaa dhici karta beri subax inaad soo kici baa dhici karta waxaa dhici karta habeenkii kuugu dambeysay ama hadalkii kuugu dambeeyey eed ku wada hadashaan inuu yahay koomaad geli kartaa waabaad iska dhiban kartaa wax kastaa dhici kara saa darteed hadalka kuugu dambeeya inuu habeenkii positive yahay oo qofka aad nolosha la wadaagtid isagoo niyaddu u dhisan tahay inuu seexdo waa laga yaabaa inaad tiraahdid khilaaf hadduu jiro see la yeelaya bini aadan baan nahay waa la iskhilaafaya ilkiya carab baa isugu dhow waa isqaniinayaan marmarka qaarkood waa la iskhilaafaya oo waxbaa la isku maandhaafaya oo way jiraysaa caqabadaas wayna dhacaysaa inta bini aadam dunida jiro waa wax weligeedna soo jiray haddana jiri doonta maantana ba jirto waa loo jeedo laakiin haddana saasoo ay tahay ayaad haddana uga sii mahadnaqi kartaa inkastoo dadka qalbiyadooda ay kala xoog badan yihiin kala cafis dhow yihiin oo aysan isku mid ahayn haddii aad taa samaysid oo joogtaysid oo caado kuu noqoto wax badan bay noloshaada jacaylka ay ka bedelaysaa adigana naf ahaantaada waxay kuu noqonaysaa shay aad caadaysatay qofkanna waxay u noqonaysaa caado markasta inuu intaa ka badanba kuu sameeyo midda labaad waxay tahay weligaa ha malaynin maxaan ka wadaa waxaan ka wadaa tusaale ahaan odaygaagu gurigu ka soo dahay caawa ha malaynin inuu gabar kale ku maqnaa ha malaynin wac hadduu telefoonkaa qaban waaye markuu guriga yimaado weydii waxaad tiradaa xaggee jirtay maxaa dhacay caawa kabacdi hadalkiisa dhegayso bal inuu run sheegayo inuu been sheegayo waad akhrin kartaa waa qof aad taqaanid waa la nooshahay waad garan karaysaa markuu beenta sheegayo markuu runta sheegayo sidoo kale gabadhii baa guriga ka soo daahday ama gabadhii baa wax samaysay waad sibad u tuhuntay tuhmadaa yaysan ku ekaanin oo keliya qalbigaaga inta badan waxaa dhacday in qofku uu wax ka shakiyo wixii uu laqo hayo maalinba wax dhacayaan halkii maalin buu qofku wuxuu tufayaa wax laga yaabo markaas waxaa isweydiinaysaa qofka maxaa ka qaldan maxaa ku dhacay waayo muddo badan buu waxaan kaydinayay halkaa maalin adigu haddii buufin inta biyo laga buuxiyo cirbad lagu duro maxaa dhacaya hal mar buu sii daynaya cirbadaa yartaa saa darteed qofkii wax yaroon micno lahayn baa laga yaabaa in aad ku tiraadi ama aad isku khilaaftaan kabacdina waxaadan ka filin oo badan inay ka soo baxaan marka weligaa ha malaynin tusaale kale waxaa dhici karta in digsiga uu dabka saaran yahay digsi baa dabka saaran suugaa la karinaya guriga adigii gabar baa tahay qubays baad istiri gal
odaygii ku qabay wuxuu fadhiyaa fadhiga telefishin buu daawanaya waxaad istiri malaha isaga unbaa wuu garan doonaa haddii dugsigu uu gubto sharqantiisa uu maqlo markaad musqusha saa u gashay haddayba ku soo dhacday bal ka waran inuuba bannaanka u baxaba digsigii dabkii saaran buu bannaanka u baxay adigii qubayskaad iskaga raaxaysatay waad iskaga jirtay waxaad soo baxday hadhow digsigiioo gubtay ama marmarka qaarkood in uu karkaro waxaa dhici karta saliiddu ay daadato kabacdina ay dabka gaarto saliidduna inta badan markay dabka taabato holac baa ka dhasha waxaaba laga yaabaa soo baxday gurigii khatar ku jiro oo guban idinkaba inaad guriga gubataan baa dhici karta marka weligaa waxba ha malayn maluhu inta badan waxa weeyaan dhibaatooyin badan buu leeyahay ha malaynin ilaahayna subxaana watacaala wayna ka reebay inaynu wax malayno waa dembi maluhu weligaa ha ka shakinin telefoon buu la baxay fadhigu aad telefoon bay la baxday fadhigii aad ha malaynin hubso weydii waxyaabaha dadka qalbiyadooda isu soo dhaweeya ayay tani ka mid tahay midda saddexaad waxay tahay xagga sariirta qofku inta badan markuu habeenkii soo seexanayo waxaa fiican inuu soo qubaysto oo ku soo talagalo in qofka nolosha uu la wadaagaa uu daqiiqad kasta u baahan karo waayo nadaafadda tan iyo qubayskan aad soo qubaysanaysa xataa qofku agtiisa markaad soo seexatid waxaaba laga yaabaa rabitaana markaa jirin inuu yimaado macnaha uu guurka dhan uu leeyahay iyo waxa macneeya oo qiimeeyaabana waa intaa oo keliya haddii taa la waayo guurku ma jirayo sax saa darteed meesha inay tahay meel aad ku soo talagashid macquul inay tahay qofkani inuu kuu baahan karo daqiiqad kasta muhiim ma ahan in aad gabadha keliya ay diyaar garoodo ama ninka labada qofba inay ku talagalaan markaad habeenkii soo seexanaysid soo cadayo soo qubayso adoo carfoon sariirtaada imow waxaa dhici karta qofkan inuu kuu baahdo waxaa dhici karta marka qaarkood dad aan nadaafad darrada jeclayn baa jira bannaankaad ka soo gashay shaqaad ka soo gashay cabaar baa telefishinka iska fiirstay kabacdi joodarigaa timid waad iska seexatay qofkani waxaa laga yaabaa inuusan ku soo aadin marka in aad halkaa diyaartay waayo inta badan labada qof isu tagooda iyo raaxaysigooda inta badan wuxuu keenaa in qalbiyadu isu soo dhawaadaan in jacaylkooda uu sii xoogsado waxaa kaloo ka mid ah in ruutiinka aad u barateen ee sariirta ku socoto isbedbedel badan oo ka jiro tan wax badan bay idinka kaalmaynaysaa wax badan bay ka bedelaysaa qaabka labadiinu aad wada dhaqmaysaan iyo sida aad wada hadlaysaan in badan oo carab badan oo jirta marmarka qaarkood waxay ka dhalataa meeshaasoo qanaaca darra ka jirto ama kulankiibaa yar ama si kalea waxu jiraan ama ruutiinkii aad 5 sano 6 sano soo wadayna halka qaab u samaynayseen baa lagu caajisay taasaa keenaysa qofku xataa marmarka qaarkood inuu wax samayn waayo inta badan marka dadku ay murmaan way dhacdaa in dareenkaasu xataa uu dhinto markii aad wax isaga mahadnaqdaan oo guriga hawshiisii wixii qof walba u qabtay aad isaga mahadnaqaysaan malaha aad iska ilaalinaysaan oo muran iyo khilaaf badani gurigii uusan ka dhex taagnayn meeshaas waa noolaanaysaa shaki kuma jiro macnaha iyo macaanka guurka uu leeyahayna waa intaa meesha haddii ay kharaaraato waa mushkilad saa darteed isku day in qofku xataa taa laftigeeda rasuulku sal alay wasallam wuxuu tilmaamay marka labada qof ee isqabtay xalaashiisu ay wada kulmaan ajar baa looga qoraya adiga laftigaaga fiiri ajar baa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga qoraya saa darteed in gurigu dhinac walba fiiri waxaad isu samayseen waad isaga mahadnaqdeen malo iyo shaki iyo tuhmo kuma murantaano isugumaydan imaanin sariirtiinii waad ku xasiloontihiin waa ku degantihiin nolosha dhanba intaasay ka koobantahay haddii si guud ahaaneed loo cabiro waayo inta macnaha u yeeshaaba waa intaa waa wada hadalka labada qof ay wada hadlaan dhaqanka ay wada dhaqmayaan iyo dhaqanka kale ee guriga marka albaabka ay xirtaan wixii ilaahay isugu xalaaliyay ay wada gudanayaan saa darteed intaa ayaan video kusoo koobaya dabcan intaynu video kale dib uga kulmayno ilaahay subxaana wa tacaala cid walba oo dhibaataysa dhibka allah ka qaado meel kastoo joognana ilaahayna ku wada xifdiyo mid kasta oo awlaad raadinaya ilaahay subxaana wa tacaala awlaad wanaagsan oo saalixa allah siiyo dhammaanteen intayna awlaad haystana ilaahay awlaaddeena hana wada xifdiyo meel kastoo dunida aan ka joognaba ilaahayna ku wada dhowro ummadeenna ilaahay subxaana wa tacaala ha mideeyo qulubtooda allah isu soo jeediyo meel kastoo adduunkan ka joognana aynu isu soo wada ducayno intaynu dabcan video kale dib ugu kulmayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh